badankiin waxay soo weydiinayaan gabadhan indhaheeda muxuu buluug u yahay. marka hore haddii aan idin dhaho ka waran gabadhan indhaheeda buluug maba ahan ama ila yaabtaan isdaji oo ku sheegaya sababta. gabadhan indhaheeda buluug waxay ugu muuqdaan sababta cirka aan anaga buluug u aragno mid la mid ah, midaas oo ah isheedna caadi ahaan kalar ayuu leeyahay. gabadhan kalarka ayaa aad khafiif ugu ah, buluug ma ahan, ha ku qaldin, laakiin indhaheena iftiin markuu galayo iftiinkaas wuxuu leeyahay mawjado dheer iyo mawjado gaagaaban. mawjadaha gaagaaban marka haddii isha meesha markay ku dhacdo ay wax kala lahayn way kala firdhismaysaa. sidaas awgeeda markay kala firdhismato kalarka mawjadaha gaagaaban kalarkoodu waa buluug. sidaas awgeeda waxaan ugu arkaynaa indhaheeda buluug. marka waxaan dhihi karnaa buluugaas aan indhaheeda ka arkayno buluug ma ahane waa indha sarcaad. mideeda kale Soomaaliyeed marka xaflado iyo aroos aadaysiin oo kale inaa xargootin aad rabtiin waa jeceshiin indhihiina kalarkooda inuu buluug noqdo, laakiin gabadha yar markaa ku aragteen miyaad dhehaysiin cudur miyay qabtaa mise waa ka masiirsan tihiin?